soo dhawaada khiyaarta muuqaalkeena maanta waa mid aad u xiiso badan aadna u cabsi badan sidoo kaleeto waa filmaanta ugu xiisaha badan ee aan soo gelino kanaalka midda kale dadka waxay weydiiyaan filmaanta tiktoka maxaad usoo dhamaystiri weysay cilada jirtaa waxay tahay waxyaabaha qaar ee cabsida ah ama ay ku jiraan xabadaha tiktok ma ogola sidaa daraaddeed waxaan kusoo dhamaystiraa halkan marka haddii aad weyso muuqaal baartitoonkiisa aad hore u aragtay baartitoogiisa haddii aad weyso ha u malaynin in aan aniga hayo laakiin youtube-ka ayaad ka helaysaa sababtana waxa ay tahay in aan diidanahay in kanaalka tiktoka laiga xiro ugu dambeyntii muuqaalka like saar waxaan gudagelaynaa muuqaalkeena oo ah maantay aad mid u xiiso badan waa mahadsantihiin dhammaantiin naagtan si dhaqsiya ayay wejigeeda ugu bedeshay si cabsi badan jaag wuu arkay inay wax qaldan yihiin haddana si dhaqsa ayay caadi u noqotay wuu yaabay kadibna wuxuu dib ugu laabanayaa xabsiga wuxuuna arkayaa maxbiis xiran oo asna sidoo kaleeto wejigiisa uu saas ka dhigay wuu naxayaa wuu yaabay booliiska ayuu ku dhacay intaas kadib gabadhan oo wadata dharka buluugga ah waxay ahayd mid ayada ku aalamiiteynaysa waxaana dafay bahalladan ama dadka cuna jack isagoo oo yaaban askarta ayuu u sheegayaa wax walba sida ay yihiin askarta markay goobta imaadaan waxay arkayaan gabadhan iyo lafaheedii oo meesha lagu cunay intaas kadib waa uu yaabayaa waxaana meesha laga helayaa موبايل ay dhageysanayso waxaan dhageysanaysaa heesta caanka ah ee ah intaas kadib waxa uu imaanayaa guriga eedadiis ayuu si dhaqso ah ku arkaya guriga waxay leedahay maalmaha ma bilaad inaad wax aragto ha ayuu leeyahay kadibna waxay leedahay anaga awood ayaan leenahay waxaan ka soo jeednaa qoyska cagaaran waxay arki karaan waxayse dadka kale caadiga aysan arki karin asagii eedis ayadoo sheekaysanay waxa soo weerarayo qof kale haddana oo haf bahal ah eedada waxa aad mid awood badan qof caadi ma ahayn waa ila dagaalaysaa intaas kadib jaag ayuu ku wareegayaa jaagna waxa uu qaadanayaa biskoolada ninkan uu watay kadibna waxa uu ku dhufanayaa xabad ninkii markuu dhulka ku dhaco waxyaabaha la yaab kale wajigiisa waxa uu ku soo laabanayaa sida qof caadi ah intaas kadib jaag waa uu baxayaa booliiskana waxay u sheegayaan in la helay dilaaga raadkiisa inuu watay kaba maqaar ah noocaana iyo u eg yihiin kabaha intaas kadib la ogaaday in target kaleeto uu qorsheynayo inuu dilo dilaaga isla markii waxaa lasoo wacaya booliiska waxaana loo sheegayaa in la leeyahay gabar 4 sano jir ah jack niyadiis waxaa kusoo dhacayso in gabadhii hore la dilaya ee xirnayd dhanka binkiga ah dilaagana uu jecel yahay dadka xiran dhanka binkiga ah intaas kadibna raadkiisa ayuu soo daba kacaya asagoo duurka soo aadaya ninkan dadka ugaarsada waxa uu jecel yahay dadka wata dharka binkiga ah hadduu arko midabka binkiga ah isla markaa wajigiisa uu isbedelaya ninkan ayuu soo qabtay waxa uuna jaag weydiinaya xageegaysa gabadha intaas kadib ninka wuxuu leeyahay aniga hilibka ma cuno waxaan ahay vegan ama dadka cuna qudaarta maxaa kaa khaldan intaas kadib jaag uu isku laabanaya wuxuuna baarayaa ninka kaleeto ee dadka cuna wuxuuna weydiinayaa su'aalo intaas kadib way soo raacayaan dadka ay waxay ku arkayaan guri ku yaala kadibna gurigii iftiinka ka baxayay ay garaacayaan waa u galayaan waxa ka furaya nin aan ka muuqan wajigiisa qalqal kadibna gudaha ay u soo galayaan wuxuu isku dayayaa inuu maaweeliyo laakiin jack meel ayaa u cade wuxuu si dhaqso ah ku furaya qaybtii ay kabaha yaalaan kabaha markii uu baaro ma ka helayo kabihii maqaarka ahaa ee loo soo tilmaamay iyo tilmaamta ay lahaayeen maadaama ay wax ka waayeen jack wuxuu ku qasban yahay inuu ka baxo laakiin jack ninkii caawinaya ayaa wuxuu leeyahay guriga waxaa ka daarneyd heestii loo yaqaanay oo horeeto ay u daarneyd gabdhihii uu cunayay labadoodii guriga ayay dib ugu soo laabanayaan waxayna arkayaan gurigii oo mugdi ah kadibna ninkii caawiyaha waxa kusoo ordayay bahalkii kadibna jack waxa uu ku dhufanayaa xabado intaas kadib ninka wajigiisa waa u jeediin bahal waaye laakiin markii uu dhinto kadib wajigiisa waxa uu noqonayaa mid caadi ah intaas kadibna waxay dib ugu laabanayaan guriga ayaga oo baaraya halkaasna waxa ay ka helayaan gabadhii yariista ee xirxirneed waxay xaqiiqsanayaan in gabadhii hore ee la cunay ay wadatay dharka binkiga ah laakiin gabadhan ee hadda ay wadatay dhar grey ah bahalkana uu sidaas u soo weeraray ama dadka cuna filimkan waxaa laga sameeyey dadka waxyaabaha arkaa aysan dadka arki karin waana filim American ah waxyaabaha qaladaadka ah ee inta duubaya ka dhacay waxba ku jira ka soo qabo kuna cadee commentiga waa mahadsantiin inta muuqaalkana mid lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo muuqaalkana like ta ka ilaawin